shirkadda bixisa adeegga lacagaha mobilka lagu diro ee jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa maanta joojisay in lagu diro wixii ka yar $100 ama wax lagu kala iibsado iyadoo la isticmaalayo lacagta mobilka ku jirta. Waxa inoo faahfaahinaya wariyaha BBC-da Hargeysa Sadiiq Maxamed Burman. dadku waxa ay toddobaadadii u dambeeyayba ay kala baxayeen lacagaha dollarka ee mobiladooda ugu jira inta aanay gaadhin xilliga la joojinayay. maantana waaba la joojiyey. taas beddelkeeda waxaa shaqaynaya oo la oggolaaday in xaddi kasta oo shilinka Somaliland ah adeegga lagu isticmaali karo la iskuna diri karo. arrintan waxaa saluug ka muujiyey sariflayaasha oo awalba ka caban jiray adeeggan lacaguhu in uu shaqadoodii saameeyey. go'aamadii fiicnaa ee soo baxay ee dawladdu ay soo saartay ee wanaagsanaa in lagu xidho ahaa go'aamo kale oo ka yar dambeeyey baa soo baxay. go'aamadaasoo ah in shilinka iyo saadka moobilada gudahooda la isaga sarifto, taasoo keeni doonta sicir bararku inuu laba jibaarmo, shilinkuna meesha uu ka sii baxo, sariflayaashuna hawada ay ka baxaan oo tootali shaqadoodiiba meesha ay ku xidhmi doonto. guddiga xal u helista sicir bararka oo go'aanadani ay iyaga ka yimaadeen ayaa waxay sheegeen inay tallaabadani ka mid tahay dadaalada ay kor ugu qaadayaan shilinka Somaliland. haddaba arrintan rajo intee leeg ayay ka qabaan in ay sicir bararka wax ka qaban karto? horta qodobada ugu muhiimsanaa sicir bararka lagula dagaalamayo waxay ahaayeen 3 qodob. kana wuxuu kii u dambeeyay buu ahaa maanta infleen. xukuumaddii tan ka horreysay ayaa horey u soo saartay go'aamo kuwan la mid ah ma aysan noqon kuwo fula, balse haatan xukuumadda talada haysa ayaa ku guulaysatay go'aamo bil ka hor ay ku joojinaysay in la adeegsado lacagaha la isugu diro mobilada wixii $100 ka yar inay dhaqan galaan maanta. muddadii ay go'aanka soo saartay ilaa maanta oo uu fulay ayaa dadweynuhu ay aad u hadalhayaan iyagoo afkaar kala duwanna arrintaasi ka bixinaya. baskii waxa aynu gaarnay in dollar lagu raaco, shaahina dollar lagu iibsado, kabaana dollar lagu balashaysto. anoo taa u sababeynaya baan tallaabada xukuumaddu qaaday oo soo dhaweynaya. bisha systemka la bedelay maanta waa 14 bisha. qofkii dollarka igu shaqeynaya qofkii guriga kaga deganaaba intuba dollar bay doonayaan. dee saameyn weyn bay ku leedahay laga yaabaa, waayo dadkii looma sii sheegin bada wax culus bay ku noqoto dee qaflada. qaybo ka mid ah gobollada Togdheer, Sool iyo Sanaag ayaan wax ka beddelka adeeggan aan laga fulin maadaama aanay marka horeba lacagta shilinka Somaliland aanay ka shaqayn jirin. Sadiiq Maxamed Burmad, BBC, Hargeysa.